السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي حكمة هذا أفتهنمada Afrika maanta waxaan ka hadli doonaa oo aan muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa hadalladii la yaabka lahaa ee laga soo xigtay Roberto Mugabe. inkasta oo qaarkiis ay ka badis yihiin haddana waxaan soo qaadan doonaa kuwa ugu caansan xikmadaha. lama arag qof dhashay bisha 2 ee Febraayo oo akhri leh maxaa yeelay bishaas waa haaf dadka dhashayna waa haaf. haddii ay daanyeeradu lacag lahaa laayeen waxaa la arki lahaa dumar fara badan oo duurka ku nool. Afrika waa qaarad la yaab leh sababtoo ah haddii uu tuug uu soo dhaco deriska ma arkayaan, laakiin haddii aad hal mar gabar guriga keensataa deriska oo dhammi waa ay arkayaan kadibna waa isku sheegayaan. inaad caato tahay kama dhigna inaad gabar faashionista tahay oo orodow gawarii wax cun. caasinimadu waxay ka bilaabataa marka aad waalidkaaga WhatsApp-ka block ka saarto si uu u arkin statuska waxyaalaha aad soo dhigto. orod oo waalidkaaga block ka qaad. haddii uu sheedaanka halkan ka bilaabi lahaa lacag qeybis waxaa la arki lahaa gabdha badan oo ugu wici lahaa shaydaaninho iyo shayddaaniito. marka uu qofku weydiiyo saaxiibtaadii hore oo aad kala tagteen oo aad weli la sheekaysanaysaan aad weydiisaa warqadihii hore ee imtixaanka rafiishan ahaan ma u isticmaashid miyaa? hal isbuuc oo keliya ayaad istaqaaniin oo xiriir wada leedihiin, dharkaaga oo dhanna gurigiisa ayaad geysay. my sister asiga maharqaanlaa. dadka oo dhan inay Facebook offline yihiin miyaad u malaynaysaa? isku day inaad hal mar sawir qaaban soo dhigtid. xitaa ma ogaanaysay xilliga uu awowga online soo noqday oo uu commenti ka bixinayo. wax ka fiican ma lahan inaad saaxiibkaad isbalansataan xilli fiican, laakiin dhibka jira ayaa waxa uu yahay adiga oo make up soo marsaday oo roob waddada kugu galo. waxaan markhaati ka ahay gabadhaas inay u carari doonto sida Mo Farah oo kale. intaa ha inoo joogo qaybtiinii koowaad. qodobkee ayaa ku qanciyey commenti ahaan hoos nagu reebta. mahadsanid daawade.